maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dila ku fulisay xidigle xoogga dalka Cabdinaasir Daa'uud Sheekh Xasan oo si bareera u dilay taliyihiisii eges dhamma xoogga dalka Cabdi Maxamed Hurdaaye taariikhdu markay ahayd 29 bishii ina dhaaftay Sebtembar waxaana lagu qisaasay isla goobtii uu ku dilay taliye ururkiisii oo ah dugsiga General Gordon ee ciidanka xoogga dalka labadii bishan Oktoobar ay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasha kadib markii gacan ku dhigluhu qirtay inuu si bareera u dilay taliyihii ururka 59aad ee gaadiidka xoogga dalka maanta ayaana laga oofiyey xadkii qisaasta waxaana toogashada kadib la isku dhinacaasay labada marxuum taasi oo ka dhigan inaan hadda kadib dil la isugu degdegi karin laguna tusaale qaato waana bilow kale oo qofkii qof dila tiirka loogu mudo isla meeshii uu dilka ku geystay sida warbaahinta uu sheegay ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdullaahi Khaliif taariikhdu markay ahayd labadii bishii 10aad 2022 abbaaro 7 subaxnimo waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane xidigle xoogga Cabdinaasir Daahir Sheekh Xasan Cumar Cabtooy 32 jira ina Xabiibo Cali Cabdiraxmaan ku dhashay Xamar ka tirsanaa ururka 59aad gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareera oo ula kaca u dilay marxuum Ekis dhamma xoogga Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye oo ahaa taliyihii ururka 59aad gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 29 bishii 9aad 2022 falkaas oo ka dhacay gudaha xerada General Gordon xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii 10aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa waxaana lagu aasay gacan ku dhiiglaha dilka lagu fuliyay iyo taliyihii uu dilayba isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed ehelada marxuumka eges dhamma xoogga dalka Cabdi Maxamed Hurdaaye iyo ciidankii uu taliyaha u ahaa ayaa toogashada kadib ka hadlay dareenkooda iyo siday u arkaan qisaasta lagu fuliyay gacan ku dhiiglaha iyagoo sidoo kale ka sheekeeyay wanaagii uu bulshada ku dhex lahaa allaha u naxariistay taliyihii ururka 59aad ee gaadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxkamadda sharafta leh ee fulisay wiilkaygi ninkii dilay dil toogasha ku fulisay maxkamadda sharafta leh waa ku mahadsan tahay inay disho gacan ku dhiigle nin edeb daruud dilay inay ku fuliso xukun dawladda waa ku mahadsan tahay waana ilaahay mahadale hortayda lagu toogtay waana ku qanacsan hortayda xukun lagu fuliyay waxaan u mahadcelinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ogaatay in uu gacan ku dhig leeyahay dilayna walaalkii Cabdi Maxamed Axmed taliye ururka 59aad waxaan daawanaa maanta ninka la yiraahdo sharcigii saxda ahaa ee aan dawladda ka rajayna kana helnay maxkamadduna waa ku mahadsan tahay ciidamada xoogga ku mahadsan yihiin oo ku qanacsana marxuumka la dilay aniga waxaan 4 bood 4 bood asaan ku tiirsanay asaan ugu weynaa asiga dhowr reer u lahay alxamdulillah dhowr iyo 10 cunug u joogtay wax qaangaar ma lahayn intuna asii ku tiirsanayeen taliyaha la dilay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan shaqada dawladda ku wanaagsan dadku xukumo iyo walaalihiisa iyo ilmuhu dhalay isugu mid yihiin aniga 15 sano ayaan ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan isla weyne aanan aqoonin 15 sano oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ahaa maana arkin in taliye isaga lamid ah ama ka wanaagsan nin qaali lagu ahaa nin aan la heli karin buu ahaa taliye ururkii buu ahaa aad iyo aad ayaan uga naxnay wala magaciisnay ilaahay abuuray ma asiga naga qaaday anaga inaan dhaafshay Shilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed magaalada Muqdisho